wali waxaanu ku guda jirnaa wararkii ciida. كل عام وأنتم بخير. guud ahaan wadankan Sweden gaar ahaan magaalada Stockholm waxaa looga ciiday ciid al-adha dhammaan waxay isugu yimaadeen dadweynaha muslimiinta ah ee masaajida badan oo ku yaal magaalada Stockholm. haddaba munaasabada ciidii iyo salaamihii sidan ay ولكن هارون شيخ حسين عبدي oo jooga المركز الثقافي الإسلامي في رينكبي في السويد wadanka Sweden magaalada Stockholm masaajidkeeda masaajidka Soomaalida gaar ahaan la yiraahdo Masjidun Nuur marka ugu horeysa Ilaahay baa subhanahu wa ta'ala mahado dhan asaga anayaan ma taqaanaa u celinayna falahu alhamdu wa lahu shukru midda labaad waxaan halkan hambalyo iyo tahniyad u soo marinaynaa bimunasabati hulul ciid al-adha al-mubarak ummadda Soomaaliyeed meel arko ay joogan adduunyada dacaladeeda meel arko joogan anagoo uga tahniyeynayna waxaanu leenahay kullu aamin wa antum bi khayr ilaahi waxaanu ka rajaynaynaa ummadda islaamka oo dhan iyo ummadda Soomaaliyeed meel arko jooganba sanadkan sanadkiisa kaleete in uu ku gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash iyo nicmad iyo ayaga oo isqabsaday ayaga oo midoobay maxamed awil ku soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam allahu akbar allahu akbar allahu akbar guud ahaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed khaasatan ummadda reer Sweden ee Stockholm Rinkeby waxaanu leenahay ku ciid wanaagsan تيجي ملك استوى عالم كيك جوجان والسلام يا وحنكو مارتي أنا هملي أدرى هويدي أبي محمد عبد الله السراري أمين حاج جامع ملك استوى جوجان يدمان الذي ملك استوى جوجان هذا وأنا أمد علنا تي في كل سنة ما أنت عن فرصة ويشينا هل كان أسمر يهودا ما سند صحفي سلوي عاد بعد ما صنتاي سيد ونك سند نوجس ودويسي مركورة وحن لا هي ملك استوى مسلمين تجوتو عيد مبارك عيد الأضحى وحن الله يديك رجينيا سنة كان سنة صعدة بشي برواق ورجينيا وحن سلامية دمان مسلمين تا قارهان أمد الصومالية مركز تيجوكتو سيدو كلا وحن سلامية ولا الله يوكل جوجا أستراليا إنجليزكا إيو فنلان إيو سومالان كيف كارسن تي في وريه سلوى waxaan aad u salaamayaa oo halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka ah adduunka meel ay ka joogaanba waxaan si khaas u salaamayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan si khaas u sii salaamayaa dadweynaha reer Puntland waxaan si khaas uga sii salaamayaa aabahay Cabdisalaam Farxoolif walaalkay Axmed Bashiir Cabdisalaam iyo walaalahay Muumin iyo Xaliimo iyo Fawsiyo dhammaan iyo ehelka iyo intii garanayso dhan meel kasto ay joogan ay mubaarak ayaan leeyahay shanta qaaradood ku nool waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ciid mubaarak ayaan leeyahay waxaan kaloo salaamayaa halkan salaam u marinaya hawada dhammaan shacabweynaha islaamka khaasatan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool wadankan Sweden ama Scandinavianka Kalsan TV-na waan salaamayaa waan hambalyeeynaa inta waxaan kaloo salaamayaa aabahay Saciid Cartan oo ku nool magaalada Boosaaso iyo dhammaan walaalahay iyo intii family halkaas ku nool hambalyo ciid mubaarak aan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogan adduunka dacaladiisa ayaan leeyahay ciid mubaarak anagoo hadda ku nool Stockholm gaar ahaan Rinkeby maqaayadda barwaaqo waxaa maanta farxad weyn ii ah in aan macnaha Janis u helo TV Kalsan inaan ummadda Soomaaliyeed uga hambalyeeyo ciideena sharafta leh waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaan ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaan kaloo si gaar ah macnaha aan salaan ugu dirayaa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Sweden iyo dhammaan daafaheeda iyo magaalada Soomaaliya iyo Muqdisho oo dhan si qaas waxaan u sii hambalyeeynaa
maamulaha guud cabdidhuxul ee maqaayadda barwaaqo. cabdiqaadir salwo kalson t v rinkibi stockholm.